hadduu Somaliland ka hadlayo laakiin soo xuduuda ka hadlayo anna kama hadli karo Daawudna kama hadli karo waa muqaddas Somaliland xuduudeedu waa ilaa yoocada waa sida international loo qaabilsay taasana aaminsan juqraafi ahaan hadduu ka hadlayana waxa weeye waxaan leeyahay waa Somaliland la saanood waxaanu ka aaminsanahay jabhadii oo noole inta Itoobiya ku kacday waagii mil sanaawi isu soo dhiibay waqti dambe horta laba oday baa meesha ka hadlay oday xariifa oo la yiraahdo Garaad Jaamac Garaad Cali ayaa hadalka soo jeediyay waxay hadal dhex maray laba nin oo aan isaqoon oo magaciisa xataa muusixin markuu la hadlayay ayuu ugu yiri laba nin aan isaqoon baa horta meesha ku wada hadlay qadiyad aan iyaga Xuseenna way ka wada hadleen labadooda qadiyad ka dhaxaysa ay ka wada hadleen marka Daawud yare markaan ka bilaabo isaga in yaroon adeero ahay weeye aabihii baan saaxiib ahayn qoyskoodii iyo soo jireenkoodii saldanad qaali ah oo rag qiimali ka soo taliyeen ayuu ka soo jeedaa ixtiraam badan aanu hayno maanta Daawud yare aabihii way gala ballamay waxaanay rag la rabo inuu barbaariyaan inay hadii alla leeyahay saldanada ku ilaaliyaan inay khaladaadkiisa toosiyaan ayaan ka mid ahay marka taa waxaan ka soo qaadayaa raaga ugaas ninkii la oran jiray raaga ugaas warfaa ugaas faarax oo nin qiimo badan oo ugaas Xuseen la oran jiray walaalahayn saldanadii maalin guur ee caan baxday ayaa waxa dhacday xiriir wanaagsan baa dhex maray iyaga iyo saldanadii Habar Yoonis qoyska labada qoys abaal loo la isku yeeshay marka nin qoyskan saldanadii Habar Yoonis ka mid ahaa oo xirsi boqol loo oran jiray gabya ahaa ayaa meel hadal kaga tuuray shir uu ka maqan yahay raaga ugaas warmarkii daaroodiya joogay baa la yiri oo dabadeedna wax la qolasii waqrina joogtay gabay buu kala dul dhacay ma doonayo gabaygaasi waqrinta uu ku yiri inaan ka hadlo ma doonayo laakiin hadalka murtidiisii ugu fiicnayd baan ka soo qaadanaya raage xirsi halkuu ugu jawaabi lahaa wuxuu yiri gabay buu ugu jawaabay wuxuu yiri surqin baan ku tiriqsiin lahaa sida sagaaraade saduuq baan ku aaburi lahaa suumadaaya sada aabaha galay bariyaad sama aabaha galay bariyaad sada ku maashaaye samaanteeda Habar Yoonis baan salax rogaayay aku reer Suldaan diiriye sugu lacayna shii marka salax rogu wax weeye markaad ka xishoonayso qofka dafurada marka Daawud yare horta isaga kelmad ma oranayo maalin horena waxaan ku yina ka adeer baan waa la iga tagay saldanada uu ka soo jeeday reer guuleed ama ciida gale ayaa ixtiraam badan inaga dhaxaya isagana waa la igala dardaarmay ciidase hadii khaladaad laba jeer ama saddex jeer ba uu ka yimaado sixideeda leh waa reerka saldanada ay ka soo jeedo iyagaan u dhaafaya wixii sixitaana anigu laakiin inaka adeernimadii iyo ballantii la igu ballamiyay baan kaga tagayaa odayga kale ee hadlay Garaad Jaamac la yiraahdo waxaan filayaa arintu halka ka weydiisanayay macnaheeda gundheeraanteeda waxa weeyaan qaab dawladnimo u hadlay anigu waxaan aaminsanahay ama Somaliland inuu ka mid yahay inaanu ka go'ay karin ka bixi karin isaga iyo reerkiisu toona laano ingiriiskii qaybiyay maalinta jigjigi soo noqoto oo garaad kulmiye oo isaga ya absame oo calan sita halka ka yimaadaan oo ogaadeen iyo absame ba ka yimaadaan nimanka la yiraahdo Itoobiya ka soo xoroobaan waxaan filayaa calanka uu qaato maalinta waan aqbalaynaa anagu laakiin xuduudihii maalinta la qaybiyay gaalkii qaybiyay hadii alla leeyahay qaybiyay Soomaali qaybiyay koonfur iyo galbeed iyo Itoobiya iyo NFD u qaybiyay taas baa xuduud caalami ah taas baanu aaminsanahay juqraafi ahaan hadduu ka hadlayana waxa weeye waxaan leeyahay waa Somaliland la saanood waxaanu ka aaminsanahay jabhadii oo noole inta Itoobiya ku kacday waagii mil sanaawi isu soo dhiibay waqti dambe waxaan aaminsanahay haday waqtigii Muuse Biixi dagaalameen oo jabhada kaceen maalma guuleysteen dhawaan anagu waxaan filaynaa inuu Somaliland isaga reerkiisu u yimaadaan
inaanay kana bixi karin oo xuduud iga bixi karayaan iyo xamartan ay ku goodayaan iyo meeshan aynu ku socotaana aanay midna suuragal ahayn juqraafi ahaan haddii laga hadlayo dalku uu ka hadlayaa waa Somaliland haddii la sii gala si hadlana waa Sool iyo Sanaagna anigaa dega Sool la majority-giisa anigaa leh meel uu haddii aan laba leeyahay ay ka wada hadlaan hadday beelaag u wada hadlayeen ciidagale iyo bahararsimo u wada hadlayeen dimeel iska soo gaadhaanba ma garan karayo haddii dhulbahantii nabad cid ka doonayo dee oo beela ka doonayo waxa weeye ciduu kala hadlayo uu garanayaa uu indhuhu iska ridayaan xuduud baa bahararsamo iyo ciidagale ka dhaxeeya ay isku dilayaan oo ama ay ka heshiinayaan ama ay ka wada hadlayaan ama Daawud Yare uu ku mateli karo ma jirto Somaliland marka laga hadlayana xukuumad baa joogta guddiyo qaran oo nabadgelyo ka shaqeeya joogta Somaliland markay tahay afka Somaliland kuma hadli karo Daawud de garaad calina cidaanu nabadda horta marka hore dhulbaanti naga khusaysa waa Axmed Garaad iyo Maxamuud Garaad iyo Yaxye iyo haddii aan laba leeyahay reeraha aan isku deegaanka nahay iyo hayaag iyo inta xuduud naga dhaxayso ayaan nabad marka hore horta iyaga waan naga soo wada doodaan ka wada hadla marka beela laga wada hadlayo haddii laga wada hadlayo Somaliland haddii siyaasadayda kelmadda u jeedina marka garaad kulmiye calan halka kala yimaado ka soo go'o Ethiopia oo gaalkiina qaybiyay uu yiraahdo haddii aan laba leeyahay waa la ictiraafay kililkii shanaad oo aniguna intaydiina ii soo goodo aan deegaanka kaga lahaa waan ogolahay inuu calan halka ka ruxdo laakiin maanta heshiis caalami aanu geli karin isaga iyo xukuumaddiisa inuu sheeganayo SSC jabhad baanu ictiraafsanahay tii ona lafti ku kacday markay jabtaydeedii soo dhiibtay oo kale waadna arkaysaa cidi lama dagaalamayne haddii aan laba leeyahay laakiinse inta dambe dagaalamadu dhaceenba maanta meel uu soo hawaysan karaa oo ciidan ku soo hawaysan karaana ma jirto wada hadalku seel hadday noqonayso qabaa'il loo wada hadlayna ciduu kala hadlaya waa naga diyaar baanu nahay haddii qabaa'il ka hadlayo cidda isku deegaanka iyo hadduu Somaliland ka hadlayo laakiinse xuduuda ka hadlayo anna kama hadli karo Daawudna kama hadli karo waa muqaddas Somaliland xuduudeedu waa ilaa iyo cada waa sida international loo qaabilsay taasana aaminsana inta aan ka aaminsanahay inta weey horta marka hore waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumadda Somaliland iyo wasiiradii iyo madaxdii dawladda ee nala joogtay juhdigay geliyeen waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa beelaha habar jeclo iyo beelaha garxajiis waayeeladooda oo arrinka qarnaqaysa iyo ka shaqayntiisaba geliyay muddo dhowr sano ah juhdi badan marka arrinkaas marka laga yimaado waxaan kaloo u mahadnaqayaa labadii beelood oo walaalaha ahaa ee shaqaaqadu dhex martay oo si niyad sami leh qolo walba go'aankii laga soo saaray ay u qaateen waa markii koowaad ee go'aan lagu wada qanco darafyadu ku wada qancaan ay qaateen waxaan oran karaa arrinkaasi arrin guul ku soo dhamaaday weeye qaramayntu siday guusha ugu dhamaatay ee maanta technical farabadan oo 400 oo technical ah iyo ciidan 10,000 aan ka yareyn xukuumadda loogu wareejiyay waliba muddo yar oo kooban oo arrinkan hal abuurka madaxweynaha u lahaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumaddu ay lahayd annaguna aanu ku adeecno kula shaqeyno la qaadanay in meesha dawlad uu aynan dawladnimadii ka bixin dawladda iyo qabiilistii xordin marka nabadda ceelfayna maanta waxaan kaaga war bixinayaa inay ku soo dhamaatay islaam xaasho iyo walaalnimo in deegaamadii la isku hayay qaybahoodii maanta la wada degan yahay in dadkii reer miyiga aan isu hiileynay isdhex mari kareen ay isdhex mareen in dadkii isu soo hiloobay oo maanta laxjaclo fara badan ay meeshii ka muuqato markaan arrinkaas ku soo koobo wuxuu ku soo dhamaatay guul iyo nabadgelyo hirgashay oo maanta cid walba ku faraxsan tahay